إسرائيل ayaa berri bilaabaysa derbi xadidaya dhulka ay iyadu haysato ee Falastiiniyiintu ay leeyihiin iyo Jordan u dhaxaysa iyo Syria sida uu sheegay wasiirka difaaca Israa'iil ee la yiraahdo Israel Ketis waa nin sahnuuniya oo xagjir ah fiiro gaar ah waxa ay tahay in la sugo waa inay ciidamada Israa'iil galaan dhulka Suuriya oo ugu yaraan 3 kiiloomitir ay burburiyeen oo ka tirsan gudaha deegaanada dhulka Syria iyada oo markii horeba ay Israa'iil haysatay dhul ballaaran oo Syria kamid ah oo ay ku jiraan ama ay kamid yihiin buuraha Golan Heights waqtigan waxa la isweydiinayaa dhul kale oo intee leeg ayay lumin doontaa Suuriya midda xigta waa aaga labaad oo dhinaca dhulka Jordan ah oo aan Israa'iil cadin in ay ka tallaabsan doonto dooxada Jordan ee badda dhimatay arinta kale ay tahay inaad ogaataa waa in derbigan ay dhisayaan aanu damaanadu ahaan Yuhuudda in ay halka ku istaagayaan ama ku joogsanayaan sababtoo ah waqti kasta ayay dumisaawan aragnaayoon ognahay Lubnaan iyo qasas ay u qabsato Yuhuuddu dhul dhinaca kale wakaalada wararka ee Reuters oo xiganaysa sawirada dayax gacmeedka ayaa maanta ku waran Kuuriyada Waqooyi inay ballaarisay warshadeeda soo saarka gantaalaha halka ballaarinta ugu weyn ay ka socotaa waa warshada Ronson oo ku taala deegaan ku dhow magaalada labaad Hamhun oo ku taala koonfurta Kuuriyada Waqooyi iyada oo warshadani soo saartay marka hore gantaalada ridada dhexe ee KN-3 oo sirdoonka reer galbeedku ay ku sheegeen in ay warshadahan in ay gantaaladan marka ay soo saarto Kuuriyada Waqooyi si aan xisaab lahayn u geyso gudaha dhinaca kale shabakada Bloomberg ayaa baahisay in Ingiriisku si aamusnaan u geeyay gudaha Ukraine boqolaal gantaal oo ah nooca ridada dheer ee loo yaqaan Storm Shadow iyada oo kororkii ugu badnaa hubka la arkay bishii October iyo horaantii bishii November ka hor intaan loo fasixin Ukraine inay gudaha Ruushka u adeegsan karto gantaalahan Storm Shadow oo ay si wada jiro u ogolaadeen wadamada Mareykanka Faransiiska iyo Ingiriisku in ay Ukraine bagcadda ay doonto ee Ruushka ana ku dhinaca kale wasiirka maaliyadda ee Israel Bezalel Smotrich ayaa meel faqaara ah ka sheegay waa nin xagjir ah ninkan oo sahnuuniya kuwa midigta fog ah waliba ayaa meel faqaara ah ka sheegay in ay soo noqoshada Trump uga faa'iideysan doonaan kala badh in dadka qasa laga musaafiriyo magaalada si ay iyagu gacanta ugu dhigaan oo ugu beeraan Yuhuud kale isaga oo sheegay in ay 5 bilyan oo dollar ku filan tahay si qorshahan loo hirgeliyo arrinkana loo fuliyo oo Israa'iil magaalada qasa ay gacanta ugu dhig hadalkan uu ninkan xagjirkii shalay sheegay waxa mid dhab ah ay nooga dhigay muddo xiloodkii hore ee Trump wuxuu xafiiska ka tagay isagoo gacanta ku haya qorshe Suudaan looga dhaadhicinayo in ay diyaariso goob loo soo musaafiriyo mas'uuliyiinta Hamas iyo qoysaskooda oo laga soo musaafirinayo magaalada qasa iyada oo Suudaan ay tan ku bedelanayso in ay ka saari doonaan liiska argagixisada waxay ku sheegeen ee reer galbeedku danahooda gurracan ee gaarka ah iyo adeegsadaan oo Mareykanku ka yahay sidoo kalena ay Israa'iil la samayso xiriir diblomaasiyadeed Khartoum tan way aqbashay iyadoo ku dhaweyd in ay ku dhawaaqdo xiriir ay la samaysato sahnuuniyadda waxa qarxay dagaalkii u dhaxeeyay labada generaal ee ilaa maanta isku hor fadhiya gudaha Suudaan hadda qorshaha ay maagan yihiin sahnuuniyiinta iyo reer galbeedka hadda qorshaha ay doonayaan in ay sameeyaan kooxda sahnuuniyadda ee nacdalan iyo wadamada reer galbeedku waa in Rwanda ama Chad labada mid kamid ah loo musaafiriyo dadka qasa balse qorshuhu waa ka alle tarabbi bayna noqon